بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذل سوكين كان مسجد كان بركيسا ما لغو كل منا ماليه هو وناكسنا وحن عاوة هل كان مرتين نوغو أنو كفر أحسن هاي مرتقلين تيسا شيخينا الشيخ محمود حسن نوني أو شيخين الشيخ حسين وحويان أو إنه صورة قلية مرتداس قيمها بدل لإن عاوة مساجد كان iyo ardaydan ay la kulanto runtii dadka ahlu quraanki amba quraadu dadka way ka qiimo badan yihiin sheekhan kugu soo dhaweynayna xalqadan waa xalqadii labaad casharada jamcinaysa waxay nagala jooga xalqadii hore ninkaas Ridwaan bay nagala jooga dhammaan ardayda kale way cusub yihiin qaybtan waxay ka kooban yihiin wiilal iyo gabdho way ka kooban yihiin waxa ku jira 3 gabdhood wiilashuna 4 hadayna hor fadhiya iyo qaar aan iska jooganaydo iyagu wali mutoontii ku dhex jira oo aan quraan bilaabin bay isugu jiraan dhammaantoodna ilaahay fadligi 20 jirka way ka wada yar yihiin waxaan rajaynaynaa sanadkan hadda bilowga ah in dhamaadkiisa ay dhamaystirtaan haduu ilaahay yiraahdo culayska ugu badnaa wuxuu ahaa xifdiga mutuunta waxa kale culays naga haystay fahamka mutuunta iyo sharaxeeda oo dhalinyar ay u badnaayeen waxa weeyaan ay ku culus tahay inay macnaha guud u fahmaan iyo waxa laga wada mooyaane inay si daqiiq u fahmaan hadana ilaahay fadligii waxa weeyaan hadda meel fiican buu sharaxuna noo maraya xifdiguna waa waxay ugu wanaagsan yihiin waxaan jeclaa intaanan ardayda u gelin inaan baraarujiyo waxyaabaan isiraado waxa weeyaan wad ku fiican tihiin xalaqaadka aanu dhigano waxa weeyaan subciska mutuunta oo kale subciska mutuuntii sida cashirka oo kale uu nooyahay bal hadii waxa weeyaan la subcin waayo waxa laga yaabaa in aan ka joojino cashirka subciskii uu gali waayo qofkaas darteed arday badan waxaan iskugu dhacnaa oo sabab u noqdo in la fasliyo subciskii bay diideen ama subciskii bay gali waayeen marka qoladii hore qalin jibisay shaatibiyadu waxay subciyeen 140 khatmo duraduna waxay ahayd 200 iyo Ridwaano imsay duradu iyadna 240 mar bay subciyeen marka iyagoo sida biyaha u yaqaana oo aan diyaarinin bay qoladaasi takharujeen imtixaan musaabaqatul mawaahib oo aan qaadnay waxa weeyaan bilihii soo dhaafnay qaar kamida ayaa ka galay qaar kamidana way cusbaayeen marka xagga mutuunta runtii mararka qaar kood laga yaabaa inay loobi karaan laakiin xoog badan baa laga baxay waqtiga cashirkan ka dhigeysto waxa weeyaan 15 daqiiqo laakiin waqtiga subciska uu qaato waa 2 saac iyo ka badan oo maalin kasta qolada hadda kulli way qoraan subciska tiradooda maanta markii aan ku yiri shalay toos waxay baan sheegay sheekh baan soo booqnay imtixaan bad maraysin way la yaabeen marka imtixaan la sii sheegay ma ku yiri sheekha kitaabka loo dhiibaya meeshuu rabo idinka weydiinaya marka runtii kalsooni aan ku qabay bay ahayd inaan xilligiina loo yimaado dhahdo hal iska weydiiyo كل ورق يريرو شارك مو وسخوبي هدي قرتاني هدي كيرين ويان به iyagana dhiirigelin haw noqoto inuu jabal weyn oo mijibal ilmi mijibal alquran inuu soo booqday marka insha Allah taala mutunta waynu su'aali doonaa sheekha kelmadiisana oo inagu soo gabagabeyn doona haduu Ilaahay yiraahdo waxa kale ka yarcodsanay xogaa quraana in ay akhriyaan inkastoo bacda maqribka uu sheegay ku yiri cashiradii uu akhriyo wax kale hay raadsanine qof kastaba cashirkiisa u dambeeyay ama kii ka sii horeeyay xasuusan yahay on wax xogaa jamciyahay naga tuso haduu Ilaahay yiraahdo marka waxaan ku bilaabaynaa quraanka deedna su'aalaha aniga iyo Sheekh Hussein iyo Sheekhuba waan idin weydiin doonaa ama su'aal idin ku dhex tuuraya ha noqoto ama su'aal
qayb ka mid a laga akhrinaya ha noqoto ama su'aal qof gaara ku socota ha noqoto intiinan meesha fadhidaba waa diyaar bad u ahaanaysaan insha allahu tacaala waxaan ku furfuranaynaa aayado qur-aana oo inoo akhriyi doono ridwaan uma jamcigii baan dhegaysan doonaa ardayda cusub ee sanadkan insha allahu tacaala كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس